tagin ee nooshahay qof kasto culimada inaad ka agdhawaato oo waxa ay hayaan aad ka qaadato waayo adduunyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala cid walba uu siiya laana agtiisayna qiimo ka lahayn cilmiga laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu siiya qofku Ilaahay jecel yahay oo nasiib badan baa diinta iyo dacwada wax laga siiya laana adduunyadu qiimo ma laha janaaxa bacuuda tanay garabkeed Ilaahay agtiisa kama dhana waxaad ogtihiin maanta ummadeena halka ay jahligu ka taagan yahay iyo dhibaatada jahligu inagu hayo iyo saynu diinteena uga qatanay waynu wada ognahay nabi maxamed ma soo noqonayo salawaatullaahi wa salaamu calayhi nabi damana lama soo dirayo khaatimul anbiyaa buu ahaa nabigeenu maanta culimada joogta inaan ka agdhawaano oo diinta barano oo ummada u khidmayno oo dacwada gaarsiino waa waajib ina saaran xataa sunna maaha fardu cayn weeyaan waa shay qof kasta waajib ku ah oo cid ka qaadaysa waajibka ayna jirin marka waxa weeyaan diinta barashadeeda inaan u tartano ruux walba qiimahaagu waa marba inta diinta ka taqaana iyo cibaadada qiimaha qofka muuminka ama darajadiisu ma aha adduunyo iyo caruur badan iyo guryo iyo gaadhiyo ma aha qiimaha qofka muuminkiihi waxa weeye cibaadadiisa iyo cilmigiisa iyo diintiisa Ilaahay inta aan wax ku qiimeynaya leena rasuulku kaleey salaatu wasalaam waa kii inaynu inagu xambaaro dadkana aan sii gaarsiino cilmi baa laga dhaxlaa anbiyada وإن الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما وإنما يورث العلم فمن أخذه رسوله عليه الصلاة والسلام أخذ بحد وافر حداف وين أيوم حيهدي كجاري قفك علمك وحكاته وحون كبرتاي وحكجاري علمك داف وين بو رسولك عليه الصلاة والسلام يقول أو معناها وكقاطي marka waxaynu halkan wax yar insha Allah kaga daranaa sifaadka looga baahan yahay sifaatu dalib ilmi qofka dalib ilmiga sifooyinka looga baahan yahay oo marka hore in laga helo sifooyinkan ay tahay maadaama qofku cilmi baranayo cilmi uu talaabo qaadayo inuu cilmi barta ay tahay sifooyinka looga baahan yahay sifada koobaad waxa weeyaan al-fahmi inuu qofku faham leeyahay fahmada Ilaahay baa bixiya laakiin uu isku dayo qofkan inuu waxan fahmo ودم والبكمرة وجهد كبحية إنه فهمه وحنا صفة اللبعض التواضع وإنه قف متواضع قف علم جبرنا وإنه يهي قف متواضع سببتها قف معناها متكبري وحما برتو وإنه قف متواضع وإنه يهي وقف معناها متواضع قف علم قال ويستغفر له استغفار دلبيا من في السماوات ومن في الأرض علك يدرك أنت قصدا أو دم با ودم بدافع دلبيا قولك قفك علم جبرانية عالمك حتى حيتان في العلم في الماء حتى حيتان في الماء بيها بدا كتر وفضل العالم فضل العالم أوليه هنا على العابد وفضل أودريها قفك عابدك علم قليل كفضل القمر على سوائر الكواكب وسيده أودريها حدقها كلا أودريين وقفك علم قليل أودريها وإن العالم ورثة الأنبياء وإنما العلماء ورثة الأنبياء علماء وكل دحلي أنبياء دحلي